hadaa midna afka ka dhashid midna meeshii loogu talagalay ka dhashid midna dhegta ka dhashid midna indhaha ka dhashid nin hadduu socdo ilmo ma celiyaan kalsoonidaadaa celisa qof isku السلام عليكم ورحمة الله وبركاته isku soo noqosho wanaagsan walaalaha dhammaan aada idin salaamaya asxaabta cusub oo igu soo biiraysa waxaan leeyahay welcome soo dhawaada waxbaan kala faa'iideynaa cid macaynayno baawarkeenu qabiil ma maanta waxaan rabaa sheekadii baarta 2 inaan ka hadlo maxaa gabdhaha kalsooni darrada ugu dhacdaa guurka ka bacdi maxay u baahan yihiin gabdhaheenu inaan u sheegno kalsoonidu inayna ku jirin yaa baarti 1 waxaan uga soo sheekeeyaa ku mashquul ninka teleefankiisa maxaa kalsooni darrada kuugu dhacdaa oo teleefanka ugu mashquushaa baarti 2 waxaan ka sheekeynayaa haddii ilaahay idmo maxay gabadhu ugu mashquushaa habeenkii caawaya markii guriga la geeyo inay hore uurka yeelato ay u raadisaa ayadoo moodaysa ninka inay ku qancinayso oo u joogayo inay uur yeelato oo ugu walwashaa siday uur u yeelan lahayd oo mashquulka u gashaa waxa waaye anigu waxaan qabaa gabadhii qaadanaysa sanadka koobaad awlaadda ilaaha bixiya guur cusub ma reer cusub ma gashay sanadka koobaad inaaba la isku mashquulayna awlaad la dhalo ya awlaadu waa hadiyad ilaahay bixiyo laakiin labadan qof ee isku cusub way isbaranayaan markii ay waqti wada qaataan xitaa tiirka guriga adkaanaya markay waqti wada qaataan laakiin hadda markii guriga arooskii la galay arooskii ka bacdi wallaca imaanay balbaleena imaanay ma la isbaranayo marka gabdhaha maxay ugu mashquulaan caaw markii guriga la geeyo habeen dambeena wallac la soo boodo stiil wali waa kalsooni darrada gabdhaha halkaas gabdhaha kalsooni darra ka haysa ayadoo ismooda inay ku qancinayso ninka yaa mana fiicna aroos ma taha sanadka koobaad isbarta wiilka isguursateen waqti isla qaata hadda guri reer ma egleesh haddaad uur yeelan xitaa mushkulaha ku gelin inaad uurkaas yacni maxaa u yeelan weyso uur xitaa ha isku mashquulin dhakhtar ha ku ordin waa weli waa kalsooni darro marka kalsooni darrada gabdhaha hal iyo laba ma aha way badan tahay oo teleefankay ahayd hadda waxaan idiin sheegaa waa uurka waxaa kaloo kalsooni darro gabdhaha ka haysataa inay ku mashquusho kalsooni darrada waxaa ka mid ah inay ku mashquusho barfuun baa kasoo uraya barfuunkii kii mida ahayn baa kasoo uraya barfuunkii mida ahayna kasoo uraya oo saako isku buufiyey aniga barfuunka isku buufiyey magacaasuu lahaa weli waa kalsooni darro hadday dhasho oo cunug dhashay 40 ka baxday oo cunugeed sanad gaaray inay mid kale uurkiisa yeelatay rabtaa ayadoo mooda inuu ninkaas u joogayo oo ay ku qancinayso hadday mid dhashay mid kale inay dhasho nin hadduu socdo hadaa midna afka ka dhashid midna meeshii loogu talagalay ka dhashid midna dhegta ka dhashid midna indhaha ka dhashid nin hadduu socdo ilmo ma celiyaan kalsoonidaadaa celisa qof isku kalsoon ku jiraya kalsooni darrada inaad cawiyo cunugba dhashid yaa ood sidii xanjo camal adiga dhan jiidantid waa kalsooni darro ilmaha xitaa dhashid xitaa waqti kala siiso aad bay u badan tahay kalsooni darrada gabdhaha ha ku mashquulin inaad ku qancisanin inaad mid hadduu hadda aad dhashay 40 ka baxda mid kale inaad yeelatid awlaadda ilaaha bixiya laakiin waqti iyo nafaqo ilmaha iskula kiin dayrinayo ilmaha u naso gabdhaha kalsooni darrada guurka naga haysta ee na dilay yaa waxaa ka mid ah in moodid haddaada uur yeelo ninku inuuna qanacsanayn uu qanacsan yahay ninku uurkana ilaahay baa bixiya haddaa mid dhashay inaa mid kale dhashid waqti si ilmahaaga markay 3 year 2 year dhaafaan guur dhal ilmo kale 2
too yar markuu cunugaaga 2 sano markuu gaaro mid kala dhal يعني gabdhaheena kalsooni daradoodu xadka way dhaafta waxayna ku dhaafta inay ninku qancinayso adigoo maantoo dhan ninku mashquulsan baad korkaaga ilowda xagee buu taagnaa muxuu sameynaa meesha shaqada hadda ka warna adigu korkaaga relax qaadatido isku mashquulshido aad waqti adigu isiisisid قروحة كسب بحلها كبلها ير داودي وصوّدا داودي لأن يرت إسجور سنة داودا وأهان لهاد وصوّدا ويلش مركز قبلها أجور سدان إلا ضها أي سميان لجوك كلا تجنا وصوّدا هدي إلهي إدمه لما أنتم وإن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.